dhalinyaro badan baa waxay ku fikirayaan inay bilaabaan ganacsi kuwaasoo qaarkood yihiin shaqaale qaarkoodna yihiin dad iminka soo gelaya suuqa shaqada oo doonaya inay ku bilaabaan ganacsi. haddaba waxaan ugu talagalay coursekan kooban qof kasta oo doonaya inuu barto oo uu waxaweyaan xog fiican ka helo aqoonta ganacsiga iyo waxaweyaan bilowgiisa. waxaan ka hadli doonaa videogan laba qodob oo aad muhiim u ah. labada qodob oo qodob yahay ideada sida loo develop karayo aba stageska soo marto business ideada waxa la dhahdo, yacni qofku inuu la imaado fikir ganacsi amba hal abuur ganacsi. markaad doonaysid fikirkaaga ganacsi inuu waxaweyaan guuleysto, tallaabooyin noocee inaad qaado amba tallaabooyin nooceed qaadaysaa. tallaabada koowaad waxa weeyaan waa inaad go-aan aad adigu ku gaadho inaad bilowdo ganacsi. waayo dadka intooda badan waxaa dhibaatada ka haysata inay ganacsi bilaabaan waa cabsida. qofkani markiiba yacni soo qaldan ayuu ka haystaa ganacsigu wax adag, ganacsigu waxa weeyaan waa wax lagu khasaaro, ganacsigu waxaan la isku halayn karin. laakiin xaqiiqada ayaa ah ganacsigu waa xornimada u sarreysa ee uu qof gaari karaya hadday noqoto dhaqaale iyo hadday noqoto mid waqtiba. marka waa in aad 100% go-aansataa in aad yacni bilaabayso ganacsi. tan waxay ku siin doontaa fursad aad wax badan kusii baran karayso, in maskaxdaada ku furi karayso xogta ku saabsan aqoonta ganacsiga. qodobka labaad wuxuu noqonayaa inaad hesho dhibaato oo aad dhibaatadaana xal u raadiso. waxaa la dhahdo yacni problem identification. inaad dhibaato heshaa yacni macnaheedu waxa weeyaan businesskuba sidiisaba waxa uu ku dhisan yahay oo asaaskiisu yahay xalinta caqabadaha amba xalinta dhibaatada. dhibaatada xalinaysaa, dhibaatada aad xalinayso then waxay kuu jaraysaa qiimey kuu jaraysaa. qiimahaasina muxuu noqonayaa waa lacag weeyaan inaad kusoo xaraysa income. marka waxaa la dhahdaa problemku businessku xalinayo ayaa yacnihi wuxuu leekaan doonaa yacnihi qiimaha uu soo xaraynayo amba yacni wax weeyaan dakhliga uu soo xaraynayo. marka waa inaad heshaa dhibaatadaas halkii ka bilaabmaysaa adiga kaa bilaabmaysaa waxaanad adigu ku qanacsan inaad doonaysa si wanaagsan lagugu qabto, dhibaato adiga ku haysata oo doonaysa in laga xaliyo, qiimo aad doonaysa in noloshaada lagu daro. yacni inahaasoo dhani waa halkay ka bilaabmayso ideada. waayo waxaa la dhahdaa halka probleme adiga ku haystaa amba sidaad doonaysa inaad wax u dhigto 100 qof oo kale ayaa raba in sidaa yacnihi wax loogu qabto amba laga xaliyo yacni caqabada noocaasi adiga ku haysta tusaalahan oo kale. marka waa in aad heshaa yacnihi dhibaato waxaad ka bilaabaysaana waa dhibaatooyinka adiga ku haysta doonaysa in lagu xaliyo. waa halka ugu horreysa ka heli karayso allahumma salli ala maxamed aad ka heli karayso waxa weeyaan caqabada ama dhibaatada jirta amba yacni ideada ay tahay inaad bilowdo oo yacni ganacsi ku bilowdo. lambarka saddexaad waxaa noqonayaa waa markaad ideada hesho yacni adigu iska bilowdo aad ogaato yacni problemskaaga ee doonaysa in la xaliyo, sidoo kalena aad hesho aad samayso yacnihi waxa weeyaan research kooban amba yacnihi waxa weeyaan waxa la dhahdo baaritaan kooban oo cilmiyeysan, waxaad ku heli doontaa ideada kusoo bixi doontaa. then fikraddaas markay kusoo baxda maxaad u baahan tahay waxaa la dhahaa idea generation. maxaad kala yacni samaynaysaa idea generationku waxa weeyaan waa halka ay ka imanayso ideada saxda ah amba yacni fikirka saxda ah ee ganacsi. waana techniqueska aad yacni ku maabgaraynayso aad ku sawirayso nooca idead qaadanayso. deetana maxaad samaynaysaa brainstorming baad samaynaysaa oo macnaheedu tahay waxaad tuujinaysaa maskaxda, then waxaad soo heshay yacnihi dhowr idea ilaa 3 ilaa 4 yacniha idea business oo kala duwan. deetana waxaad dooranaysaa ta kugu munaasabka ah ee doonayso inaad bilowdo. deetana idea generationku macnaheedu waxa weeyaan 5-6 idea kala duwan qaabkii aad uga dhex qaadan lahayd ideada business ee kugu munaasabsan adiga. marka maxaad samaynaysaa waa maskax tuujin yacni brainstorming waxa la dhahdo. tana ku siin doontaa aakhirka ta ugu wanaagsan adiga kusoo baxaysa markay noqoto business idea. qodobka afraad muxuu noqonayaa ideadii markaad hesho maxaad samaynaysaa waxa la dhahdo concept development. maxaad horumarinaysaa ideadii baad horumarinaysaa. qaab nooceed oo horumarinaysaa waxa weeyaan waxaad ka dhigaysaa wax la fahmi karayo adigu fahmi karayso ficil lagu samayn karayso. yacni ideada marka hore hesho qaabab kala duwan u hesho maskaxda tuujiso waxay kaaga baahan tahay inaad qaabayso inaad bislayso
that's it si aad u bislayso marka maxaad u baahan tahay waxa la dhahaa concept development oo ah qaabkii aad ideyada ugu bedeli lahayd mid tallaabo yacni wax weeyaan laga qaadi karayo oo la tijaabin karayo yacni qodobka shanaad wuxuu noqonayaa waxa la dhahdo validationka yacni incubationka validationka iyo incubationka waxay noqonayaan inaad ka dhigto ideyadii mid dadka ka hesha yacni tusaalahaan kale attention ka hesha qaabkii attention ugu helaysaa yacni feedback baad urursanaysaa asxaabtaada ehelkaaga iyo dadka kugu hareeraysa ayaad ka urursanaysaa feedback deetna tani waxay ku siin doontaa inaad sii qurxiso like ideyadii ood ku ladho baahidooda yacni cause of dadka kugu hareeraysanin inta badan waxay qabaan aba baahiday qabaan wataad doonaysa inaad ku dabaqdo macaamiisha cidda u horeysa ku noqonaysa macaamiila waa asxaabtii ehelkaaga yacni aba dadka kugu dhadhow mostly waayo dadka u horeeya iyaga laftigooda yacni waxa weeyaan aaminaya fikirkaagaas ama fikirkaaga ganacsiga doonaysid inaad samayso deetana incubationka yacni marka laga hadlayo waa qaabka ganacsiga looga dhigo ganacsi hirgeli karaya tusaalahaan oo kale waa dilaacinta ganacsiga tusaalahaan oo kale markaan dhegla ka eegayno digaagadu markay beedka dhasho way ku fadhiisataa muddo yacni waxa weeyaan maalmo ah deetana markay ku fadhiisato fadhiga macnaheedu waxa weeyaan way incubate garaynaysaa laakiin waxay siinaysaa temperature-kii looga baahnaa si uu beedkaasi u qarxo oo yacni uga dhalato yacni digaagadu uga dhalato marka sidaas si lamid ah waxaad u baahan tahay muddo aad si fiican aqoontii u urursato oo aad u incubate garayso si fikirkana u noqdo fikir dhasha oo guuleysta yacni macquul ay tahay in si fiican looga shaqayn karayo qodobka lixaad waxa uu noqonayaa implementationka wax la dhahdo like iminka fikirkii baad soo heshay fikirkii baad qaabaysay yacni fikirkii baad yacni ka dooratay dhowr fikir oo kale deetana qaabayntii baad la timid deetana waxa weeyaan conceptkii baad develop garaysay deetana validationkii incubationkii baad yacni soo gashay oo ah inaad feedback yacni urursato muddana aad siiso aad waxa weeyaan ku incubate garayso oo aad uga dhigto ganacsiga ganacsi waxa weeyaan hirgeli karaya ama fikir hirgeli karaya aad uga dhigto akhiran waxa lasoo gaaray tallaabadii dambeysay lixaad oo ah implementationkii inaad actionkii qaado halkan oo kale marka waxaa ku jira prototype waxa la dhahdo dadku waxa laga yaabaa ganacsiga markay bilaabaan inay markiiba iska bilaabaan oo yacni si toos u galaan laakiin waxaa jira waxa la dhahdaa prototype waxa weeyaan waa inaad tijaabiso ganacsigaagaas inuu shaqeynayo in kale tusaalahaan oo kale waxaad bilowday ganacsi kabaha ah marka si aad ganacsiga u ogaato ama wax badan yacni uga barato fikirkaa inuu shaqeynayo oo waxaad bilowday kaba inaad keento second hand kaba hore loo soo isticmaalay laakiin jaban ood ugu talagashay dad khaasa ugu talagashay ama raggan badmar kuwii doonaan ha ahaadaan dadna waxaad samaynaysaa ma wada keenaysid mar keliya tama dalbanaysid laakiin maxaad samaynaysaa 5 beer 10 beer oo kale aad keenaysaa 10 beer amba 5 beer waa prototype waa tijaabada marka waxaad ka dhex arki karaysaa dhammaanka suuqa yaalla amba dalabka suuqa yaalla inta uu leeyahay iyo waxa weeyaan sida lagaaga iibsanayo iyo baahiyaha kale loo baahan yahay iyo xataa yacni haddii aad fikirkaaga doonaysa inaad yar qaabayso wax ka bedesho then prototype baa yacni imanaya implementationkii yacni action baad qaadaysaa tallaabad yacni wax weyn qaadaysaa tallaabada aad samayso ee aad qaadaa maxay kuu sahli doontaa waxay kuu sahli doontaa inaad hesho oo aad yacni ku guuleysato fikirkaagaasi inuu noqdo mid wax weyn hirgeli karaya marka qodobadan aynu kasoo hadalay dhammaantood oo qodobo kaa saacidi karaya in aad ganacsi aad samayso ama fikir ganacsi aad hirgeliso wixii su'aalaha diyaar baan yahay aad baad mahadsantihiin